وزير ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Maxamed Daahir Axmed oo weeliyay agaasimo waaxidka baahiyaha gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada Abdishakuur Maxamed Cabdi gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Sheekh Ismaaciil gudoomiyaha ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Aadan Faarax Maxamuud iyo mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska imtixaamaadka heer qaran iyo heer gobol ayaa maanta waxay si rasmi ah u kormeereen habsami u socodka imtixaamaadka shahaadiga ee sida habsamida uga socda magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal mas'uuliyiintani oo mid u booqday iskuulada sida habsamida uga socdaan imtixaamaadka shahaadiga ayaa ugu horeyn waxa ugu warbixiyay wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo habsami u socodka imtixaamaadka gobolka Awdal gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Sheekh Ismaaciil waxaanu halkaas ka sheegay Ilaahay uga mahadnaqaynaa in maalintii labaad imtixaanku noogu socdo si degan oo habsamiya ilaa imkan wax dhibaato ayna jirin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ilaahay nagu asturo sida uu imtixaanku ku dhamaado waxaan kaliya talaba fariin aan fari lahaa dhamaan waalidiinta kow inay moobilada ardayda guriyaha kaga soo reebaan moobilka ciidanka la wareegaya si ay taas u dhicin ilmaha yuna laba jeer yanad khasaarin ardayga imtixaanka waaya iyo moobilkiiyo waayo talabaadna waxaan fariintan gaarsiinay dhamaan waalidiinta waxa weeyaan iyo ardaydaba qalinka banka ama qalinka biirooga ee istiigada leh masaxma haddaad imtixaanka kaga shaqayso muddo 2 cisho gudahooda iyo qalinkaasi masaxma marka waxaan ardayda uga digniin ka siin lahaa inay dhamaan iska ilaaliyaan inay ku isticmaalaan qalinka istiigada leh ee biirooga qalinkaasi isagoona la masixin ayuu hadhow tolo masaxmaya oo hawadu la falgalaya markaas aanad u waayin imtixaankaagi oo inaad ka shaqaysay isboos imtixaankii una banaanaan marka aad isticmaashay qalmadeenii caadiga ahaa ee biiroogi ardayda dugsiyada sare kuwa dhaxana waxaan leeyahay qalmadeenii caadigi ee isticmaalsan Wasiirka isaguna halkaas waxa ka hadlay Abdishakuur Maxamed Cabdi oo agaasimaha baahiyaha gaarka ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska heer qaran ee Soomaaliland iyo waliba isagu mas'uulka gacanta ku haya imtixaamaadka lagu qaadayo dugsiga saddex Sheekh Cabdiraxmaan waxaana halkaas ka sheegeen runtii waxaan ahayn kormeer ka socda wasaaradda waxbarashada heer qaran dhammaan dugsiyada soo marnay aad iyo aad buu fiicnaan wax qisha iyo wax moobila iyo wax fawda ah oo aan aragnay intaan soconay ma jirto ilaahay ma hadii weeyaan waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inuu imtixaanku sida iyo si ka fiican noogu soo dhamaado maanta maalintii labaad ay tahay bishan 16 tahay oo maalin axada waxaan cadeynaynaa in uu imtixaanku u socdo si habsamiya ilaahay baana mahadle goobtan waxa ku galaya 10 dugsi waa 14 fasal alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa amniga fiican lagu siiyay ilaahay ma hadii weeyaan ilaa hadda waxa habeeyatay dhibaato oo imtixaanka ilaa kulmi ma jiraan sidii loogu talagalay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay noo qadriyay bay u socotaa ugu dambeyntii wasiirka ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Maxamed Daahir Axmed oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu la dardaarmay guud ahaan ardayda imtixaamaadka ku jirta waxa ilaahay mahadiya maanta in maalintii labaad imtixaanku si habsamiya oo dhamaan goobaha aanu soo maray oo uga socdo ardayduna si wanaagsan oo ka qayb qaadanayso waxaanu halkan uga faa'iideysanaa fursadan in wacyigelintii waalidiinta ah inay ka fogaadaan arrimaha imtixaanka dibta u keenaya oo mobilku ka yahay ardaygana kalsoonidiisa waalidku ka qayb qaato laakiin aanu ardayga maxay kalsooni darri waalidku ku beerin oo leenahay sida wanaagsan shalay maanta imtixaanku u socday dhowrka cisho inoo haran insha Allah bidnillaahi kariim inaad ku wadaan oo halka maxay dadaalkaas iyo habka edebta leh isku kalsoonida leena ardaydu maxay ku wado guud ahaan goobaha soo marnay gobolka Awdalna wax naga farxiyay mooyaane wax dhibaato kuma soo arag Hussein Ataya Jama Hussein Gafne Television Caalamka Universal TV Boorama